yurub markaan tagaan ogaaday af soomaaligu inuu diinta ka mid yahay af soomaaligu diintu ka mid yahay waa afafka muslimiinta waa luqad diin xambaarsan waayo dhasha maanta yurub joogtaa ee soomaaliyeed intooda badan iyo soomaaliya way kala go'ayaan waxaa laga yaabaa inay dadku yidhahdaan marka way soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba kaa garanaynin kaasuu gurigiisii u haystaa adiga hadduu kuu yimaado waa waageeni isma fahmaysaa intaa waxa dheer afku inuu diin yahay cid wax u sheegtaba waa la la'yi waayo boqolkiiba boqol baan odhan karaa wadaadada soomaaliyeed waxay ku hadlaan maxay soomaaliga xataa afafka kale waxaa laga yaabaa inay fahmaane inaanay ku hadlin xataa afafka kale kuwa akhriya ama wax ku bartay inay fahmaan baa laga yaabaa inaanay ahayn maxay fluent speakers maaha sidaa awgeed jiilashan yaa diin u sheegaya